أيوة ما حسنت هاي وأنت كسي بدن والوسود وينيا سيدا رجع أذيك وكلا وحق الشيران وحال ربع سيدا ذيك الوسود وقرحت بدنين الوسود وما حسنت هاي dagaalamayaashan ka tirsan maleeshiyaadka argagixisada ah ee al-shabaab ayaa isku soo dhiibay ciidamada qalabka sida ee howlgallada ka wada aaga u dhaxeeya Ceelbuur iyo Guriceel kadib markii ay xiriir la soo sameeyeen saraakiisha ciidamada qalabka sida iyo madaxda barnaamijka qaran ee dhaqan celinta maleeshiyaadka DRB ee Galmudug dagaalamayaashan oo lagu kala magacaabo Maxamed Nuur Barre iyo Mawlid Cumar Faarax Ciro ayaa sheegay inay ka tanaasuleen fikirkii guracnaa ee argagixisada iyagoo codsaday in la cafiyo diyaarna ay u yihiin inay la dagaalamaan al-shabaab labadan xubnood oo argagixisada u qaabilsanaa qaybta jabahaadka muddana qayb ka ahaa ficilada argagixisada ayaa xusay in go'aankoodan uu salka ku hayo kadib markii ay arkeen dhibaatada iyo xasuuqa kooxdan ay ku hayso shacabka Soomaaliyeed tabarkaas waxaan ku qadanay meel la yiraahdo du'aal waa nagala soo qaaday hameen madooba du'aal nagala soo qaaday dacana la keenay marka dacna la keenay dacdii ninkliya waxaan joognay muddo adiga adaan 4 bilood aan joognay meeshii ka bacdi waa nagala soo qaaday laba qaybood aan ahayn waxaan ahayn 340 nin oo aan meeshaas lagu taabaro hawdka dacaniga lagu taabaro ninkliya 340 iyo 40 waxa loo qaaday hiire waxa loo qaaday mudug ragana kalena waxaan loo celiyay jubbooyinka hoosana loo celiyay shaqada aan qabahay inuu shaqo military head oo nalo tababaray meel oo waxaan joognay jaqahan joognay meel oo geergo'ahan joognay meel oo wax ku imaha aan la arag joognay meeshaas 4 saac gudad si baxaleedan gudad iyo beelayo ku jirnay inta wax loo sheegi karaan u sheegi rabaa oo baaqitaanka u diraa dadka meesha joogo bal fikir macnaheeda iyo diinteeda horta fikir kabaha lagu dukunay naftooda bal horta ka qoos qaada aabaha iyo hooyada wala isku nikaaxay sheeqan isku nikaaxay bal horta asiga naftiisa haduu joogo weydii hiish lagu dukunay bal weydii waxyaalo badan oo xoogaa nafteeda aan ku dhaliilay waxna aad ka dhihi karin ayaa jira hadii aad wax ka sheegtana il gaar ahaan lagu fiirna hadana gaashaanle sare Cabdullaahi Cabdi Raage oo ka tirsan saraakiisha NISA ee Galmudug iyo gaashaanle dhexe Cabdulqaadir Maxamed Cartan Gazaawe oo qayb ka ahaa soo dhaweynta xubnahan ka soo tagay al-shabaab ayaa sheegay in raggan ay xiriir la soo sameeyeen saraakiisha ciidamada sidaasna ay ugu suura gashay inay isu soo dhiibaan kadib markii ay qirteen dhibaatada argagixisadu ku hayaan shacabka Soomaaliyeed iyagoo baaq u diray xubnaha wali ka tirsan kooxdan waa idin soo dhaweynaynaa marka hore soo dhawaada 14 ka soo dhawaada soo dhaweynshihiina iyo soo dhaweyntiinana wixii hadda ka dhiman waa noo sheegi kartaan oo idinku sii darno waa mahadsantihiin waxaan idin ballan qaadaynaa haddaad safkaas dhibaatada badan oo isqarxiska iyo adduunyo la'aanta iyo aakhir la'aanta ka soo tagtaan inaad bagaaxaydaan wadankiinana si xorriyada aad ku joogaysaan haddii ay idinku cabsi geliyaan dadkii la qabto waa la gowraca ama waa la dilaa dhibaatadaas dadka ayaga ku haya waan soo dhaweynaynaa inay dalkooda iyo dadkooda dib u xoreeyaanna waa rajay doonaa waxay isu soo dhiibeen raggaas dhibaatada ay arkeen oo ay ka dhex arkeen nimankan shabaabka dhexdooda duruufaha ku haysta iyo dhibaatooyinka ku haysta ayay arkeen dhibaatooyinkaas xanuunkooda ay uga soo baxsadeen xorriyad male waarid lama hadli karaan xaasaskoodii iyo ehelkoodii iyo qaraabadoodiina lama hadli karaan intaas waxaa ka dheeriya inay daroogo iyo dhibaatooyin badan u geysteen oo qof kasta ay la daba joogaan inay cirbad ku dhiftaan si uusan xorriyad u helinin mabda iyagu ay aaminsan yihiin mabda aan ahayn inaysan samaynin marka waxaan ugu bashaareynaa dhalinyarada meeshaas ku jirta ee la qalday ee la marhabaabiyay waxaan leenahay dhalinyaro ay soo dhawaada haddii ay soo dhiibi waayaan de waxay marayaan kuwii hadda birdheer oo kale meesha la yiraahdo ceel dheer oo kale wax ay marayaan oo kale marayaan wixii la marsiiyay marayaan iyo meel ka sii xun ciidamada qalabka sida ayaa howlgallo ka wada qaybo badan oo Galmudug ka tirsan taasi oo keentay in horjoogayaal iyo maleeshiyaad badan ay ka soo goostaan al-shabaab iskuna soo dhiibaan ciidamada dawladda federaalka iyo Galmudug iyagoo ka soo galaya aagaga howlgalladu ka socdaan ee gobolada Mudug iyo Galgaduud